بسم الله الرحمن الرحيم مر لبعض وحن سلام يا شعب كصومالي dalka iyo dibaddaba waxaan bilaabanayna mawduuceena kale waxa weeyaan Ethiopiada maanta iyo waxyaabaha looga baahan yahay qodobo waxaan ka hadlaynaa aad muhiim ah oo isleeyahay dalkan Ethiopia mas'uuliyiintiisa waxa uu noqon karaan gashi fikirka muwaadinimadu ma aha oo qofka kursiga jooga inaad u aragto inuu ka cilmi badan yahay ka aqoon badan yahay isaga laftiisa u baahan waxyaabo badan oo hoos maraya marka waxaan ka hadlaynaa dhowr qodob oo isleeyahay Ethiopia maanta ahmiyad ba u leedahay mid waxa weeyaan Ethiopia lafteeda image-ka dadku ay ka qabaan magaca Ethiopia markay maqlaan maxay dareemaan waa in wax laga bedelo midka kale hirgelinta dastuurka Ethiopia waxa la haray dastuur fiican baa la qori qoraal fiican baa la qori laakiin waxba kama jiro weeyaan waxa jiro kale garashada waxa la yiraahdaa image nooc ma laga qabaa in garashada la hirgeliyo waxa kale oo jira kala duwanaanta noocee loo arkaa kala duwanaanshaha maanta labada qof hadii ay kala duwan yihiin mid baa midka kale mucaarad u arkaa mucaaradnimadu sida ma aha marka dhowrka qodob ayaan mid walba dul istaagaynaa iyo inagu qaabka aanu aragno wax adaan ku horeeyo magaca Ethiopia marka la maqla maanta laga soo bilaabo ilaa mililik dadka cadaadis baa jiray xilli salaasa sidoo kale migista sidoo kale melazanawi ilaa kii ugu dambeeyay ee moodaysa inuu daacadda isagu iska laakiin tabarta daraa ee ra'iisul wasaare shanta sano in haysta xayla maryam ciidanku ay ka awood badnaayeen marka Ethiopia marka la maqlo ilaa waqtiga waxa la dareemayaa meel ciriiri ah magaca Ethiopia laftiisa marka waxa loo baahan yahay hogaaminta iyo isbedelka maantu in image-ka guud ee Ethiopia la bedelo waxay ku xidhan tahay qaab socodka guud waa in la bedelo waa in Ethiopia loo arko wadan furfuran wadan dimuqraadi ah wadan dadka aan lagu leeynin wadan fikirkiisu xor yahay wadan la wada tashanayo intaasba bil cakiskeedi maadaama uu jiro number 1 meesha isbedelku ka bilaabmayo waa in image-ka guud ee Ethiopia la bedelo qodobka kale waxa weeyaan dawladnimada misunderstanding badan baa ka jira dawladnimadu maxay tahay ninkii shalay aad soo dooratay ee codka kaaga baahnaa umba markuu kursiga ku fadhiisto libaax noqonaya dawladnimadii baa marka Ethiopia si kale loo turjumaya waxa loo arkay wax dadka ka awood badan ka sareeya qofka hadduu dawladda u shaqeeyo inuu wuxuu doono samayn karo ciduu dawlad dili karo wuxuu doono dhici karo wuxuu doono samayn karo gabadhu doono kufsan karo dambi una lahayn marka dawladnimadu sida ma aha dawladnimadu waa mutual understanding waa wada tash qofkan ku xukuma adiga codkiisa adiga leh oo doortay laakiin inaga balu fiirso deegaankeena waxa ka soo jiray ilaa maanta lafteedana waxba iskama bedelin kii shalay aad dooratay oo hadda reerkiina ahaa yaad wadada markuu soo marayo yaad ka dhuumani oo dooran bismillaahir rahmaanir rahiim oo wadada u jari waayo waxaad ogtahay hadda waa ninkii aad adigu xagxagan lahayd ee wax weydiisan lahayd nacala abaha ku yaal hadana talaaba ka qaadin hadan saa lagu xirin adoo bisinka haya yaad ka dhuumani marka nidaamka dawligu shacabkeenu gaari markay arkaan way ka cararayeen dariis markay arkaan way ka cararayeen mas'uul markay arkaan way ka cararayeen maxaa kalifay dawladnimada waxa lagu qaba ayaa dhibka ahaa marka image-ki noocaas ah hadii aan la bedelin waxba isma bedelin waa in marka dawladnimadu ay tahay ninka mas'uulkii nin noqonaya kabiin shacabka u dhimrinaya shacabka soo dhaweynaya taas baa marka lagu bedeli karaa qodobka kalena waxa weeyaan xagga garashada Ethiopia waxa moodaa inay tahay meel garashada lagu la dagaalamo waxaan tusaale u soo qaadan karnaa waqtigii dhargiga wiil yar baa diyaarad kiciyay dhagax buur wiilkii yaraa ee diyaaradda sameeyay waa la toogtay dawladda qaaday hadda waa dawladdii ku faani lahayd ee iskuulkana u diri lahayd ee maanta wax badan uu soo saaray oo kalena la oran lahaa ninkaas Ethiopiana soo saaray caalamka maanta waxa lagu faanaa waxa weeyaan scientistiga noocaas Mareykanku u dhashay meelheeb u dhashay Ethiopia u dhashay waxaas uu soo saaray taas ba marka wadanka magac u noqonaysa innagana wax kale iska daayay ilmaha yar ee ardayga hadii uu ka firfircoon yahay ardayda kale macalinka laftiisa iska qaban ba oo dacweyni oo oranaya ilmaha yar maana garanin ardayda uu ka firfircoon yahay marka taana waxa loo baahan yahay in wax laga bedelo oo image-ki noocaas ahaa garashada in laga faa'iideysto qofka garasho kugu dhaama inaad u yeedho oo tiraahdo maxaan waayo garashada iyo dawladnimadu marka isla jaan qaadaan baa wadanka wax laga dhigi karaa laakiin inta iskarab socdaan wadanka waxba laga ma dhigi karo qodobka kalena waxa weeyaan wada jirka iyo kala duwanaanshaha wada jirku ma aha adigoo khaldan oo wadadii aan haynay ka leexday oo bilcakis u socda inaan iska ka daba socdo inaan kula jiro kala duwanaanshuhuna ma aha adigoo khaldan
inaan kula yahay wardoonti way daadinaysaa war meeshan aynu iska laxaamadno oo diidan tahay haddaad tiraa mucaarad baa tahay ereyga mucaaradnimada laftiisu say Soomaalidu isticmaasho iminka nin muwaadina oo wadankiisa ilaashanaya inuu ka burburo oo baylahdii ka hadlaya yaa laga yaabaa in la yiraahdo hebel waa mucaarad oo lagu shaambaday mucaaradnimo xaggu mucaaradka yahay adiga mucaarade labadiina adiga wadanka kharibaya mucaarada marka waxa loo baahan yahay kala duwanaanshuhu waa inuu noqdo fikir isu keeni kara oo doonta daadinaysa de waxaan garan karnaa doonta haday daadinayso hoosta ka duleesho inay degi doonto marka miyaan kula saarnaada haddaan idhaahdo war waa kan waad aragtaa itusiyo itaabsi waa kan waayo qofka bini'aadmiga wuxuu maqla iyo wuxuu arko waxa maskaxda ka raadayno waxa uu arko marka waxa loo baahan yahay wixii marka aan ku tuseen ku qanciyo in ficilkeega aan la nimaano doontii aan alxamano marka inaku hadiya jeer hadaba kala duwanaanshaha iyo fikirka wanaagsan ayaa waxaan u arkaynaa mucaarad oo waa integration waxa aniga iga daahan eeg qofku aroor walba waa arday iskuulka muxuu u tagaa ardaygu waa inuu wax soo faa'iideysto maanta wax ka dahnaa formula in loo soo sheego faa'iido u tahay marka ruuxa aniga haddaan kursigan ku fadhiyo nidaamkan wuxuu maamulayo meel iga daahnayd eeg caalamka goor walba wax lagu mashquulsan wax loo baranayo waa maxay waa to find the solution dhibaato jirta in xal loo helo badda in la maro maxaa kalifay in badda la tijaabiyo dhibaata keentay baahi baa keentay cirka in la maro baahi baa keentay waxaasoo dhan waa la wada furay marka dhibaatada ku hortaala ninka kula furaya haddaad tidhaahdo waa mucaarad dee waa yahay godkaa ku dhaco hadhow ha igu soo calaacalin maanta taasaa taagan dhibaatada kale jirta waxa weeyaan qofkii oo khaldan yaa loo sacabaynaya Soomaalidu intay isku sacabaynayso ee ninkii ku sacabaynayay munaafaqada meesha taala nin baa kursiga lagu ixtiraami madow oo loo sacabayni saadu shirka u dhameeyo yaa la oran waruxu ku hadii ma maqlaysi waruxu inoo la yimid markiis hadii marka ninkan muxuu sidaa u leeyahay kan kursiga ku fadhiya xooga badan ayaa mucaarad u arkaya oo uu qoranaya ninkii uu kaadi madaxweyne sidaa ma aha meel hebla arintaasi kama jirto waa saysa yaa la oranaya ama kii staafkiisa habaaba kugula boodaya wariya maxamed madaxweyne hadal kugu celisay waxa loo arkay dambi inaad dambaabtay marka qodobkan waxaan ku soo koobayaa hogaaminta sare Ethiopia waa in image-ka qodobadaas imika inaga dhibaatada kale ina sii haysa markasta Ethiopiadii kale ka sii dambaynaa Ethiopia caalamkii bay ka hadhan leeyahay haddana Ethiopian ka sii dambaynaa haddana waxa la yidhi shanta kale la isku yidhaahdo ma garanaysaa kuwii dib u dhacay maanta anfar horumar baa ka jira hirari horumar baa ka jira gambela horumar baa ka jira binishangul horumar baa ka jira laakiin dawladdeegaanka Soomaalida xilligii horena waynu ogeyn wax kastoon haynana dib u burburay imikana waxa lagu mashquulsan yahay kaliyeeta nidaamkii Cabdi Maxamuud Cumar inuu ogeyn ayaa arday loo sii yahayba ma ninkii arday u sii abad maranaysan meel la geenayo oo meel noo rarayo I don't think wallahi billahi tallahi arday buu yahay inuu arday u yahay ba wallahi ana dhaartay ficilkaad ku garan kartaa warimaka hadii imika dad la isugu yeedho oo lagala hadla arrin beeraha iyo sidii beeraha loo tabcan lahaa sawirkooda lagu dul qorayaa arrin kale wax kale lagu dul qoranayaa dadka noocaas oo maanta maxay taageereen maxay baa la oranayaa maxaa kalifaya markaa maalin walba waxba la baranayaa nidaamkii wadanka loo jahwareerinaya baa la baranayaa jahwareerkaadu weyd ma ku kalan sii baranaynaa mawduucana intaas ku soo gabagabeynayna